يا مقع إلهي إن حلكيga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto kulanti wanaagsan bulshay kani waa hordhaca barnaamij dabagal ah oo iridaha uga gelaya xafiiska ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Gule waa kuma Gule dhalashada uu sita ama darka Soomaaliyeed ba mise waduulka xabashi la yiri muwaadiniin ma wuxuu taxdhiga Mahdi Gule ciida Soomaalida mise tan Abyssinia boqcadee ku dhashay baradee ku barbaaray barashada loo xidhigaalkana xaquu ku qaatay agabaraha ama cashuurta oo ku soo aflaxay dadkee laga guray ama bixiyay door intee leeg ayuu Mahdi Gule ka qaatay u dawaka dhiibkii Itoobiya loogu gacan geliyay halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax farmaajo waa musharax waa shakhsi dhiibay weeyaan Qalbi Dhagax Mahdi Gule waa ninkii waxan ba ka soo shaqeeyay soo ah nin Itoobiya ka soo shaqeeyay waxaan hadda ma garanaysaa aan silaayay ma qolaasna xiriir buu leeyahay Itoobiyaanka baa ra'iisul wasaare ku-xigeenka halka waxa ugu jirtay warqad daraafti ah oo soo qoray oo waxa aanu doodayno anagu moogtahay waxa lama hordhigay mawduucan baafkan oo ka sheegay doodii markay dhamaatay warqad baa soo saaray waxa la yiri haye warqadan waxa idin akhrinaya go'aanka Mahdi baa soo saaray go'aanka waa la gaaray arinta faraha ayay ka baxday sharciidan baa loo raadinayay dabadeedna go'aan la soo gaaray ayaa golaha wasiirada la keenay markii doodii dhamaatay 2 saac la doodayay ayaa warqadan la soo akhriyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka akhriyay hal codeeyay waxaan ku leeyahay maxaan ka codeeynaynay bahalkii kadoodeeyna maanta dhan hal koomo suurtagal ma ahayn in laga bedelo wax kasta aad dhahdii iyo wax kasta la cuskaday kalena codki baa la geliyay awood intee leeg buu ku lahaa guureed inay isku muqloobaan maamul goboleedyada Soomaalida iyo dawladda federaalka taasi oo dhaafi weyday khalkhal iyo cayn wareeg xeeladeed sidoo uga garsooray wambarada uu ku metelo beelaha dir mashaariicda iyo shaqaalaha intay gaadha taageerada iyo kalsoonida uu Mahdi Gule ka haysto dadka uu ku metelo kursigan uu ka dhowkaysan yahay qaabkee ayuu ugu kala garsooray beelaha waqooyi ee Somaliland imise murashax madaxweyne oo u baratamaya Soomaaliya ayuu heshiis la qaytay waase kuma siyaasiga u dhisaya ama daba ambulan yahay Mahdi Gule intuu saameyn ku leeyahay si kala fogaanta ay si kala durkayaan Soomaaliya iyo Somaliland halkee ayuu rubaha dhigan doonaa ugu dambeyntii mustaqbalkiisa xeeladeed ama siyaasi ruqonikii lahaa dabada hayaama kacdee dhaawac intee leeg ayuu ku qoomay dhardhaarka saddexaad ee garsoorka Soomaaliya haddii laga tegi waayo ujeedda noocee ah ayuu Mahdi Gule ku halqafay wambarka uu hadda dhacdiido jifadeesay dambaabi jirtay ninkani aynu hadal haynaa siduu u maareeyay mashruuca cimilada ee uu xafiiskiisa hoos geystay barnaamijkeena waxaynu ku lafaguri doonaa kuna jeexjeexi doonaa teer iyo intii dhammayd 5 gu ma jiraan mas'ala soo helaya irbadna ha ahaatee wax la sheego oo Mahdi Maxamed Gule uu ka buddigay deegaamada uu ka soo jeedo muxuu ku aflagaaday beesha ogaadeen dan intee gaarsiisan ayuu ka leeyahay Mahdi Gule mudanayaasha uu kuraasta u boobayo waa maxay sababta wasiirka qorsheynta ee isaga hoos yimaada deegaanadiisa uu u geeyay mashaariicaha mugga iyo miisaan kale ee ku kacaya dhowr kala milyan Mahdina aan laba soo helayn hal mashruuc oo deegaanadiisa taartay ama kula ay taalay la soco maalmaha soo socda barnaamijkan oo ka jawaabaya dhammaan su'aalahan iyo qaar kale oo maankaaga ka gooxaya